وهجاك أصحاب قيمة يقايا له وجدان مع ويلكي يراي وحو صراحي معلنكي سكولكا معلنكي سكولكنا وحو وصو وذي ويلكا غوريغا ويلكي يراي أبيسا أيا الله سو وذا آدي وكنا معلنكي أيا وحو ليحي أنيغا أيا وقلا يا أباها إذنكا بنانكا يقول سوغا أبيه أيو وحو وقرقراعي البابك وكنا معلنكا wuxuu gargaraacayaa gurigii wiilka yaraa aabihii waa kana albaabka ayuu furayaa oo waa kana macalinka ayaa isku sheegaya oo leeyahay waxaan ahay macalinkii iskuulka oo waxaan ahay macalinkii wiilkaaga iskuulka ugu dhigayay laakiinse adoogii ayaa wuxuu u soo dhaweynayaa si sharaf leh oo qiimo badan ayuu u soo dhaweynayaa macalinkii iskuulka waa kana macalinkii iskuulka ayaa la soo dhaweeyay waa kana odagii wuxuu soo qaadayaa kuraas oo wuxuu u diyaariyay odagii macalinkii ayuu halkan u dhigay macalinkii ayaa hawshii rabo inuu sidaan ku galo oo hadalkii bilaabo waa ujeedaa macalinkii iyo odagii aabihii wiilka dhalay halkan ayay wada fariisteen oo ay wada hadleen oo ay ku sheekaysteen sheeko kadib ayaa macalinkii wuxuu bilaabayaa qisadii wiilka iyo arrimaha waxa ku dhacay iyo waxa qabsaday ayuu aabihii ugu sheekeynayaa macalinkii ayaa sheekada qaatay oo aabihii ka dhaadhicinaya qiimaha waxbarashada ay leedahay iyo maaragtay ilmaha qiimaha ay leeyihiin laakiinse aabihii macalinka ayuu si fiican u fahmi waayo ayuu wuxuu leeyahay sidee wax u jiraan maxaa dhacay maxaa iga aragtay ma qof waxaan kula ekahay macnaa waxbarasho diidan miyaa qof ma waxaan kula ekahay ilmihiisu ku xun ma aan kula ekahay see laakiinse macalinka ayaa wuxuu isku dayayaa inuu aabihii si wanaagsan wax uga dhaadhiciyo oo wax u fahansiiyo laakiinse aabihii wuu fahmayaa oo wuxuu macalinka u sheegayo aad buu ula dhacayaa oo markaas ayuu garowsanayaa waa kana adoogii uu fahmay arrimaha iyo macalinka wuxuu ka hadlayo iyo sida wanaagsan oo wax aga dhaadhiciyo oo jeedaan adoogii hadda ayuu wax fahmay oo macalinkana wax ka dhaadhiciyay in maaragtay guriga ay u joogto islaan xun oo aan naxariis lahayn cunugana waxa guriga ka buriyo cunug ay tahay islaantaas waa kana hadda ayuu macalinka u waxay wiilashii waa wiilkii saaxiibkii iyo wiilkii adooga dhalay waa kuwan waa soo wada galeen laakiinse waa ujeedaan duruufta iyo dhibaatada ka muuqato cunugii yaraa adooga dhalay waa kana eedidii arxanka darneedna hadda guriga maba joogto oo wayba ka maqan tahay odagii waa kana waxaa lasoo horfariisanayaa cunugii yaraa uu dhalay laakiinse odagii aad buu ula yaabay waxyaalaha jira odagii waa kana wuxuu aad ugu naxsan yahay dhibaatada faraha badan ee wiilkiisii uu soo maray ayuu la yaaban yahay iyo waxa kale uu la yaaban yahay sida ay iskaga dhigi jirtay habartii eedada arxanka darneyd sida ay maaragtay wiilkan ula dhaqmi jirtay iyo sida ay isku tutusi jirto isaga iskaga dhigi jirtay qof wanaagsan waa kana odayga aad buu ula yaaban yahay aad buu maaragtay arrimahan ay ku noqotay mucjiso fajaciso ku noqotay waxa uu filaysanayay iyo waxa meesha ka soo muuqdeen laba kaafi kala dheeri ayay noqdeen odayga waa yaaban yahay laakiinse macalinka mar walba wuxuu aad ugu muujinayaa ilmaha inay aad iyo aad muhiim u yihiin oo aad iyo aad laga maarmaan u yihiin ilmaha marka cunugan wuxuu macalinka markuu u sheegay arrimaha waxyaalaha uu ku sugan yahay odaga oo u sheegay odagii aad buu u naxay waa kana halkan ayuu
wuxuu mar walba uu ka sheegaa isagana wax walba oo cunugaasi oo la jeclaay oo u sameyn jiray laakiinse dhexdooda waxa ka shaqeyn jiray eedadii arxanka darneed ayaa dhexdooda ka shaqeyn jirtay eedadii arxanka darneed wax naxariis ah haba yaraatee oo ay u haysay cunugaasi ma jirto odagana gooni ayay isku tutusi jirtay cunugana gooni ayay loo dhaqmi jirtay waa kana cunuga yara ayaa markaanay ka sheekeynaya dhibaatooyinka iyo qisada sida xun ee eedada la dhaqmi jirtay ayuu hadda ka sheekeynaya waa kana isagoo aad u murugaysan ayuu hadalkii qaatay oo aabihii iyo macalinkiiba ka dhaadhicinaya sida ay ula dhaqmi jirtay eedadii arxanka darneed waa